nabad saaxiibayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaal kale oo xiiso leh. Waxaan ka wada sheekaysan doonaa Testimony Fountain of Life. Fountain of Life qaarkiin waa maqasheen intiina kale aan maqlin. Fountain of Life waa goosho dabiici ah si dabiiciyana jirkaaga uga shaqeyn doonta. Waxa laga sameeyay geed la yiraahdo Norwegian spruce oo ka baxa dalka Norway. Geedka muddo 30 sano oo la baariyay waxa la ogaaday inuu ka duwan yahay geedaha kale lidkiisa. sababtoo ah xilliyada cimiladu isbedbedelayso waxa la ogaaday geedkaasi wax isbedel inaan ku dhicin waana sababta weyn ee jirkeena lagu tijaabiyo runtiina Fountain of Life ay ku guuleysatay muddo kooban ay jirtay inay caawiso boqolaal qof oo ay ka dareemaan faa'iido weyn. Stephanie waxay inoo sharixi doontaa testimony gaar ah iyo waxyaabaha gaarka ah ay ka dareemtay Fountain of Life muddada isticmaalaysay. Stephanie waxay ka mid tahay tiimkeena Oblos Global waa shirkad ka saacideynaysa kana caawinaysa inaad ka ganacsato in ka badan 200 wadan meel walba aad joogto. Stephanie waxay ku nooshahay Ottawa. Fountain of Life waxa la soo saaray 2018 bishii labaad. Muddada yar ee jirtay waxa la ogaaday inay caawisay boqolaal qof oo ku kala sugan daafaha dunida. Waxa ka mid ah waxyaabaha faa'iidooyinka gaarka ah ee leedahay Fountain of Life inay haysato wax la yiraahdo free disease. Sidoo kalena inay leedahay wax la yiraahdo antioxidants. highly antioxidants inay saarayso dhammaan wasakhda jirkeena ku jirto dhan inay banaanka soo saarayso runtiina ay haysato wax la yiraahdo lignans. Sidoo kale waxyaabaha faa'iidooyinka gaarka ah leedahay Fountain of Life waxa kamid ah inay leedahay anti-inflammatory ama caabuqa bararka waxyaabahaas oo dhan inay jirkaaga ay ka hortagayso kana caawin doonto. Sidoo kale waa antimicrobial ama antibacteria way ka hortagaysaa bakteeriyooyinka jirkeena ku jira. Sida caadiga jirkeena waxa ku jirta 2 bakteeriyo mid faa'iido leh iyo mid xun. Faa'iidada leh way reebi doontaa ta xunna way ka saari doontaa. Stephanie muddo badan oo isticmaalaysa Fountain of Life waxay ka ogaatay faa'iidooyin fara badan. Waan xanuunsaday waxa igu dhacay hargab iyo qufac. Sidoo kale waxaan ogaaday inuu jirkeygii uu hoos u dhacay difaaciisii. Waqtiga waxaan ahaa qof jimicsi sameeya runtiina ku dadaala inay cunto healthy leh ama cunto caawinaya jirkeeda. Waxaan ogaaday muddo kooban aan isticmaalayay Fountain of Life in jirkeyga waxyaabo aad u tiro badan ay ka bedeshay runtiina si tartiib ah markaan isticmaalayay Fountain of Life inay difaacayga kor u soo qaaday. waayo waxa ku jira wax la yiraahdo lignans sourceskaas oo laga helo vegetableskeena runtiina difaaceena dhisaya kana saaraya jirkeena bakteeriyooyinka kala duwan ee jirkeena ku jira. Fountain of Life waxay iga caawisay xanuuno fara badan oo ay ka mid tahay hargabka iyo qufaca iyo hay'ad muddo kooban runtiina muddadaan la kulmay Fountain of Life aanan isticmaalay waxaan ka dareemay nafis iyo inuu jirkeyga isbedel weyn ku dhacay. Goojadani waxay caawinaysaa caafimaadkaaga mustaqbalka iyo kan hadeerba. Runtii aad baan ugu farxay markaan la kulmay goojadan. waayo caafimaadkaygii ayay si lama filaan u bedeshay. Sidoo kale waxay iga caawisay inay timahayga ii soo saartay. waayo Fountain of Life korkana waa laga isticmaali karaa afkana waa laga qaataa. waxay igu noqotay waxyaabo aad u cajiiba markaan arkay inay timahayga soo baxayaan. waxa kamid ah waxyaabaha kale cajiibka ee Fountain of Life leedahay inaan u isticmaalay ilka xanuun runtiina ay iga caawisay mar dambana aan isku arag wax ilka xanuuna. waxaan idinkula talin lahaa inaad isticmaashaan goojada Fountain of Life oo runtii siro badan ku duugan yihiin si dabiiciyana jirkaaga uga shaqeyn doonta. goojadan qof walba wuu baahan yahay sababtoo ah qof walba wuxuu u baahan yahay inuu difaaciisa u dhisnaado. waayo haddii uu difaacaagu dhisan yahay waxa yaraanaysa sababta cudur uu jirkaaga ku soo weerari lahaa. haddii aad xanuunsan tahay iyo haddii kaleba Fountain of Life xal bay ku tahay. Fountain of Life waa kaabaha qof walba meel walba aad joogtid waad heli kartaa. ku mahadsanid daawashada muuqaalka.